Waryadahen halow waa qumayo xor xildiid waa anigio soo laabtay maad ka fiicantihiin so maanta waa axad weeye la axad the first day samaaha waana sunday waa maalintii solal dias la idhaaho waa maalintii cadceeda so sheekooyin badan maaragtay maadaama uu aries ama dee cadceedu the sun uu godkii aries ku dhacay barwaaqadiina maaragtay springiina gugiina bilaabmay waqti uu waqtiga cadceedu ku jirtay godka wanka ama aries sidaas seasonkii cusub waqtigii cusub lagu galay oo ahayd dee bishii hore 20keeda enerjiyada maaragtay ama dee maxaa la yidhaahaa masajyada ay soo gudbinayaan meerayaasha ayaynu in yar u fiirsanayna micnaynayna iyo meelo baan geynayaa ku saabsan dee enerjiyadani meelahayna geynayaan iyo shaxda adduunka ka socota politics hadday tahay iyo waxyaalo badan ood arkaysiin oo hortiina lagu ciyaarayo ilain adduunku wallaahi oo bilaahi maaragtay shaxdani maba isbedeshaba the same playing card baa la ciyaaraya the same game baa la ciyaaraya because hadaad u fiirsatid maaragtay boqolkii sano marba adduunka la burburiyaa la dhisaa la burburiyaa nimankan dee miisaaniyiinta kuwii adduunka dhisayay baanu nahay dhaahaa dhagax dhiga waa inay haddana wax burburiyaan ilaan dhaqaale iyo waxaan economic ku saabsan maaragtay dhaqaalaha iyo xoolaha iyo hantida ila waxa weye game of cards moogtahay house of monopoly waxaana shaxdani boqolkii sanaba dee sheekadu markay dadkii u wada cadaato waaqiga u cadaadaan ay dadkii wada arkaan sheekadii way soo wada dumayaan soo maaha marka haddana wixii waa inay dudumiyaan haddana dib u dhisaan oo waxaan imika loo bixiyey maxay ahayd reconstruction destruction and reconstruction shahaadintu dee gamekaasun bay ciyaartaa badankuna nimanku gamekaasun bay yaqaanaan inay wax burburiyaan haddana dhisaan haddana burburiyaan adduunka kelidood ma maamuli karayaan laydinkuna ma sii dayn karayo ma fahantee mahalayaho wada mugdigii iminkana shaxda unbaa la wadaa marka inagu saameyntayna ugu leedahay soomaalihan ama haddaynu qurbaha joogno ama wadankiiba joogno qodax joognahay iyo shaxdii adduunka 100 sano ka hor la ciyaarayin baa dib u soo laabatay wallahi hadaad u fiirsatidna maaragtay kuwan iminka turkiga ama cismaaniyiinta isku sheega dee waa kuwii maaragtay agreement ama treaty saxeexay oo inayna empire noqonin so iminka saxeexaasi dhowr sano ka hor gabadh baaba maqlay oo tiri okay the contractkii inay 100 sano waxba samaynin waxay ku ekayd I think October 2 sano ka hor ma ahayd mise 3 sano ka hor ayay ku ekayd oo markii dagaalkii laascaanoodba bilaabmay markaasay ku ekayd iminkana dee faragelintay ku hayaan adduunka oo dhan iyo soomaaliyaba xitaa u fiirsada marka waxbaa meel idinka tusaya meel dheer galood dheer baa ila leeyahay muraayadan meel dheer baa wax idinka tusaya iyo enerjiyadan imika dee meerayaashu ayna tusayaan waynu u fiirsanaynaa ilaan adduunkani enerjiyada shaxdan unbaa kolba lakala rogayaa sheekooyinkan sheeka xariirkan unbaa kolba dhinac loo rogayaa wax kaloo cusub ma jiraane ma fahanteen but obviously intaan sheekadaa gudagelin maaragtay nuurkiiba inoo daaraya la idhkiya waxaan idhi full moonku dayaxa wuxuu ku buuxsamayaa godka libra librana waxa weeye de basically waxa rule garaya ama maamula venus faynus baa maamusha faynusna waa maxaa loo yaqaanaa astaantii u taagneyd lamaanaha jacaylka beauty wealth waxyaalo artistically beautiful oo kalarada la yidhaaho isticmaala waa pink reddish kalaro maaragtay happy oo feminine marka maalintii dhaweytay walaha anaa suuqa u socdaa unbaa anoo suuqa joogo inbaa iga soo horbaxday faynuuskii benkiga markaas ani wallaahi kanaan u baahanahay aan ku daarto nalkaygii marka waka faynuuskan aynu daaranaynaa it's a very beautiful already maaragtay
already tea lightkeygii waan dhex geliyey so aynu nuurkii daaran laydhkii faynuuskii ilan god mugdiya lagu jiraa waxba lama arkaya yeah Venus ama Libra ayaa cadaaladda xaqa toosan inagu wajahaysa yaa ilan qibladii baad ka wada luntaana maanta dhawaato walaahi markaan baxayna iyadoo maalintu caddahay maaragta ayaa waxaan arkayba dayaxii oo dee iminka quarter ay ka harsan tahay isagoo buuxsamayaba ayaaban arkay maalin cad shalay toole storygaygaaba soo dhigaya anyways nuurkii waa inoo daaray yeah halkan aynu gelinaynaa what wallahi waa very nice it's beautiful soo maaha qumqumtiina waynu daaranaynaa yeah laba af bayba leedahay wallahi bila Pisces bayba ku saabsan tahay tani maanta laba afa anyways qumqumtiina waa inoo daarayaa shayaadiintii way rafanayaan intii ugu dambeysay way rafanayaan khatiyaan bay taagan yihiin okay qumqumtiina halkaas inoo dhigay okay so maxaan idhi aynu ku bilowno waxaynu ku bilaabaynaa intaan sheekada dheer ee 100 sano intaanan gelin haddaad u fiirsada xitaa Saturn wuxuu ku jiray godka Pisces yaa godka Pisces godka labada kalluune kala firdhinaya yaa kala baxsanaya oo duality the conflict inay jirto yaa Saturn waadigii maanta dhowto laba idin soo macneynaya wax weeye raagay waa halkan ereygan rage ka yimid waa colaad socota weeye marka colaadii waxay rabtaa hadana inay dagaalkii saddexaad adduunka ilan 2 jeer baa la soo qoray marka shaxdani markastaba shaxdana 3 geesood baa la raadinayaa heshiiska waa 3 geesood wax kasta ilan nimankani number ray jecel yihiin marka waxaan Trinity xitaa idhaahaan yaa ilay ilmaha yaa dhala aabii hooyaa dhashay nin iyo naag baa dhale yaa isaguna 3 buu ku yahay marka 3dan it's very interesting yeah and the trio 3 geesoodkan waxbaa idinka tusayaa so Saturn ama raage godkii Pisces buu ku dhacay oo conflictka oo colaada yaa rageka yaa colaadii la waday meel kastaba laga hurinayo waad arkaysiin and Mercury iyo Venus yaa Mercury inagu dusaynu naqaana dusa yaa dusha Mercury iyo Venusna imika godka Pisces bay ku jiraa laakiin retrograde bay ku jiraa retrograde waa markay energygoodu maaragtay yaa ay dhinaca negativeta ay tahay weeye marka Mercury wuxuu ku saabsan yahay communication information waxaa la yidhaha travel and safarka yaa safarada maxaa la yidhaha isfahanka heshiisyada marka retrograde markuu ku jiro negativeka haddaad ka eegtid yaa dee waxa dhacaya isfahan waabaa dhacaya yaa waa la agreementdii baa la isku haystaa issues with travel baa dhacaya nacam safar delays baa dhacaya yaa issues with traveling yaa haddaad u fiirsatid maalin dhaweytoole xalay toole ahayd mise maanta ayaadan newskan ka akhriyay intuu retrograde ku jira maaragtay Mercurygani energyga Mercury waxyaalo badan baa xitaa Heathrow airportka ka socday imikana waxaa la yidhi dadkii fasaxyada ila waqtigii fasaxyadaba lagu jiraaye baasaboorradii qaali baaba laga dhigay marka travel issues travel delays problems with safarka sheekadii waad ka maqlayseen airportka xamarna oo gantaala la isku tuurayaa yeah marka retrogradeka Mercury wuxuu ka baxayaa negative aspectska wuxuu ka baxayaa tomorrow oo bisha 7deeda yeah marka maqli maysid wax travel issue ku saabsan ma fahanteen Venusna iyadna the retrograde bay ku jirtaa in Pisces again conflict yeah duality labada waji negative iyo positive-ka marka iyaduna bisha 12keeda ka bixi doontaa oo bisha 12keedana waxa weeye markuu dayaxu uu ku buuxsamayo godka cadaaladda Libra yaa Librana waxaa maamula Victory libinta daacad macaad yaa da'dii caddeed waxaa maamula Venus
marka 12 April bayadna ka baxaysaa oo de sheekooyinkii ku saabsanaa relationship issues ama lamaane ama familiar issues ama dadaan isfahmayn iyaguna is haysta waxaasna 12 bisha ayaa energygaasi ka baxaysaa oo direct bay noqonaysaa energydu caadi positive way bay u soconaysaa and intana aan ku daro okay so maanta waa Sunday waa Axad waa the first day الأحد the first day maalintii koobaad oo the Sunday loo yaqaano af Ingiriisiga Sunday sun ama cadceedu wuxuu ku jiraa godkii Aries and at 28 degrees buu kaga jiraa marka Sabian simple-ka ayaan yara idin akhriyaya waa idin sharaxayaana maxaa la yidhahaa dee imageka ama pictureka ama sawirka layska tusayo waxa energyda socota sun in Aries at 28 degrees waxa la yidhaahaa marka a large audience assumes forming of a man in mask large audience nacam dad bulsho ama dad bulsho badan ayaa waxay sawirteen nin mask gashan marka waxay ku saabsan tahay basically haddaynu yar micnayno themeska ama dee waxa laga hadlay waxa weeye qof isqarinaya oo mask gashan on maxaa la yidhaahaa de shaqsinimadiisa ayaa qofku saxda qofku yahay aan ku tusayn oo mask gashan illusion ku jiro and performance basically maaweel oo shax oo drama on wajigiisa saxda dadka tusayn ama intentionkiisa saxda oo persona buuska ayuu basically soo gashanaya qofkaasi marka wuxuu ku saabsan tahay qof isqarinaya true identity-gooda and mask ku qarinaya ama intentionkooda mask ku qarinaya qof maaragta daaha dabadiisa wax ka samaynaya dadkuna si ay u filayaan ama si ay moodayaanba laakiin sidaas ma aha wuxuu ma fahanteen marka imagekaas uba u fiirso a man that's wearing a mask waxbuu qarinayaa soo maaha persona iyo personality buu iska kaa iibinayaa ama iska kaa iibinaysaa qofkani qof authentica maaha qof original maaha waa qof adiga wax ku tusaya laakiin waxbaa ka dambeeya astaanta ariga wankuna wuxuu taagan yahay dee waa wankii lane waa the leader weeye waa zodiac signkii ugu horreeyey halkii the first one weeye marka waxa weeye initiator baa la yidhaahaa waa signka ugu horreeyey qofku markuu wax cusub bilaabana qofkaasi waa qofkii ugu horreeyey waxaan initiate gareeyey soo maaha so initiation ayay ku saabsan tahay initiation of Soomaali haddaan initiation waa qofka dee leaderka maaragta waa la caleema saaraa soo maaha caleema saar baa basically laga hadlayaa waa qof assertive qof wax diidi karaya wax dooni karaya oo dabeecadiisu stubborn iska tahay laakiin wuxuu rabo soo gudbin karaya so maadaama cadceedii godka ku jiro godka Aries ku jiro cadceedu godka Aries ku jirto at 28 degrees ay tahay laynagu leeyahayna iska jira dad aan authentic ahayn dad aan intentionkooda la garanayn dad mask xiran ayaa meesha dhex ordaya ama enerjiyadaas baa jira iska jir baa lagu leeyahay oo dad baa just game maaweel performance ama wax ciyaara game ciyaaraya dadka iska jira lagu leeyahay waxyaalo ku saabsan personal motivation qofka ha oranay wallahi waa role modelkaygii because weji buu ku tusaya you don't even know wejigaa wax ka dambeeya qof character ciyaaraya kaar ciyaaraya role playing samaynaya for other people laakiin adigu waxaad u malaynaysaa inay daacad waxan yihiin waxaas iska jir baa lagu leeyahay energygani pay attention dadka waxaa ciyaarayna waxa lagu leeyahay muraayada isku eeg waryahay waxani ma dadkaad u ciyaaraysaa mise waa authentically you waa wax adiga maaragtay waa waxaad tahay miya qofkanaad ciyaaraysa maa tahay mise dadkaad u ciyaaraysaa
intana waan ku darayaa. Yeah, it's very interesting. Dayaxu moonku iminka wuxuu ku jiraa godkii Leo libaaxa arkaya. Anigu maaragtay ceedaydu sankayga wuxuu ku jiraa godka Sagittarius la yidhaha. Sagittariusna waa faraska bood weeye, waxa weeye sign ku saabsan qof raadinaya xaqiiqada, yeah, waxa dhabta ah, yeah, the true real story, yeah, iska philosopher ah, yeah, on gamekan inuu game ciyaaro aan rabin. Dayaxayguna, yeah, dabeecaddeeda qarsoona la soo baxana markaan rabana waxa weeye moonkaygu ama dayaxaygu godka Leo ku jiraa. So maanta waaba maalintaydii, ma fahanteen, yeah. Leona de muxuu ku saabsan yahay? Waa bravery buu ku saabsan yahay, waxa weeye sign very warmer, yeah, and energy warmer, energy braver, energy creativer, yeah, energy prouder. Sometimes waxa la yidhaha I can be too proud, but laakiin aniga dayaxayga ku jira, so I'm not overly proudful, but laakiin that's astaamaha libaaxa, ma fahanteen? Okay, so intaasi waa intii enerjiyadan socda, yeah. Marka Saturn, yeah, raaga iyo colaada iyo rageka, yeah, ilan dadku imika waqtigan waxa usoo baxaysaa, waqtigan waa waqtigii dad badani maaragtay Saturn returnkoodii ay dhacayaan. Saturn returnkooduna waa maxay? Waa markuu raage Saturn kusoo laabto godkugu jiray maalintan dhalatay, yeah. Aniga kaygii roughly marka ugu horeyso qofka meelaha 29.5 soddon jir markay yihiin buu soo laabtaa. Marka ku xigtana waa meelaha 60 jirka. Markay kusii xigtana waxa weeye qofku markuu yahay meelaha the late 80s 90s, yeah. Laakiin dadku badankoodu majority of people de intaa hadduu ilaahay cimriga u dheereeyo mooye intaa gaari maayaan, 2 jeer bay arkaan, yeah. Markaad 30 jirta iyo markaad 60 jirta, 2 jeer dad ka faa'iideysan weydood wuxuu ku leeyahay ilan waxa la yidhahaa waxa weeye the cosmic teacher lesson buu ku barayaa. Adduunkii intaad joogtay 30 baad joogtay, maxaad baratay, maxaad fahantay, yeah. Dabeecadaadii hadday xumayd negative ahayd waxma iska bedeshay, wuu karbaashaa dadka Saturn markuu soo laabto. Ilan waa raagay, waa kii raagayay, waa kii rageka wadayay, yeah. Marka labadaas it's important inaad ka faa'iideysatid, yeah. Laakiin 3 jeer buu soo laabtaa, yeah. Laakiin dadku badanku 2 jeer bay arkaan. Markaan ku leeyahay wax kastaba waa 3 geesood, wax fahan. So Saturn in Pisces energy-ga ee dualityga, conflict-ga, colaada ku saabsan imika taagan iyo meesha la rabo in loo celiyo, yeah. boqolkii sanaba in wax la dumiyo wax la dhiso ayaynu in yar faahfaahinaynaa oo dee politicskii oo colaadahan iminka adduunka ka socda iyo inagu shaxda meeshaynu kaga jirno ayaynu yar faafinaynaa. Hadaad u fiirsatidna dee 3 generation 100 sano way galaan, yeah. Ilmaha aabihii iyo awowgii, ilaan Soomaalida waxay tiraa magacaada saddexan ii sheeg, yes aan kuu garta who you are basically. So in the next video waynu kusii hadlaynaa inta ku saabsan 100 sano maxaa jiray, yeah. Inagana meesha shaxda xageynu ku taagnay. Waa idin salaama.